dadka qaar ayaa social media u soo nasasho taga dadka qaarna way u soo shaqo tagaan dadka qaarna waxa u yimaadaan inay wax ka bartaan midkee ayaad ku jirtaa gacantaada waxa ku jira ama telefoonka gacantaada ku jiray wuxuu ka awood badan yahay awood kasta oo taalay adduunka 1970 isku day inaad waqtiga ku bixisid waxyaabaha ku anfacaya isku day inaad ka tagtid waxyaabaha maalayacniga ee waqtiga ka luminaya sida TikTok iyo Facebook isku day inaad xirfad dhisatid taas waxay ku siin doontaa natiijo wax ku ool ah muddo sanad gudaheed maanta waxaad nooshahay xilligii dahabigii the golden age xilli aad informationka iyo xogta iyo abundance ayaad maanta nooshahay haddii aad xirfad yeelan weydo xilligaas haddii aad income iyo dakhli samaysan weydo challenge bay ku noqonaysaa muuqaalkan insha Allah hadii la waxaan kugu wadaagi doonaa 7 xirfadood oo maanta qiimo iyo value weyn ku yeeli doona income iyo dakhli badan ku soo galin karaya qof walba time zone buu ku jiraa time zone kaaga ku dhex jirtaa waxa jirta dad iyagoo late koogii 60 jiradoodii iyo wixii ka dambeeyay ilaahay albaabo waaweyn u furay maantana adiga way dhici kartaa in lagu furo haddii aad maanta yar tahay waqtiga ka faa'iideysatidna waxay ku noqonaysaa wax weyn marka waxa koobaad ee u baahantahay wax weeyaan inaad naftaada aamin naftaada believe in yourself haddii aanad adigu naftaada aaminin haddii aanad aaminin inaad xirfad baran kartid wax noqon kartid wax samayn karaysid cid haba yaraad ku aamini karaysaa ma jirto arrinka koowaad ee u baahantahay wax weeyaan naftaada aamin believe in yourself haddii aad xirfadahan 7 xirfadood aad baratidna noloshaada wax weyn bay ka bedeli doonaan xirfadda ugu horeysa haddii aan ku horeeyo waa AI waa one of the most wixii ugu horeeyay bedelay dhammaan siday wax u socdeen oo dhan waagii hore waxa la oran jiray informationka iyo xogtu waxay isku bedelaysaa 5 sanaba hal mar laakiin informationka iyo xogtu maanta waxay isku bedelaysaa every single day go baa ku dhacaya haddii aanad korin marka haddii aad adiguna baratid wax noqon kartaa copywriting baad isticmaali kartaa social media marketing baad isticmaali kartaa web designing baad isticmaali kartaa anything AI waa xirfadda koobaad ee tahay maanta inaad master garaysid xirfadda labaad ee maanta haddii aad baratid ama baahida ugu weyn ay ka jirto waddankeena waxa weeyaan web design weyn inaad baratid sida website loo design garay website design markaan ka hadlayno waa e-commerce ha noqoto information product ha noqoto maadaama adduunkii online noqday qof walba waa inuu present ku leeyahay informational website ha noqoto ama business website ha noqdo ama e-commerce site ha noqdo dhammaan sayidadka kala duwan ee la sameeyo ayuu qof kasta u baahan yahay marka inaad baratid sida website loo design gareeyo waa xirfadaha ugu awood badan leh marka web design maanta inaad garanaysid waa xirfad ku siin karta inay income iyo dakhligaagu sare u kaco marka waa xirfad ay tahay maanta inaad master garaysid xirfadda kale ku xigtay tahay iyadna inaad baratid waxa weeyaan maanta video editing maanta waa game content is a king maanta waxa labadeena iskeen soo gaarsiinaya waa videogaas weeyaan muuqaalkaas waxa isku xidhay waxa weeyaan waa editka uu soo maray marka video editing aad baratid maanta waa one of the most valuable weeyaan skills weeyaan waa xirfadaha ugu muhiimsan ee ay tahay Allah musta'an aad baratid haddii aad baratidna qiimo ku yeeli karaya waxaad ugu shaqayn karaysaa boqolaal meelood oo maanta kaga shaqaysan karaysid adduunka isaga ku baahan haddii aad video editing baranaysid wadnahaaga duldhig sidii aad xirfadda aad master ugu noqon lahayd master maaha basic waxyaabaha yar basic ama xirfadda kale iyadna ku xigta waxa weeyaan content creation iyo content management haddii aad maanta baratid sida content loo create gareeyo san muuqaaladan oo kale aan soo create gareyno you become one of the most valuable person in our society Allah musta'an bulshadeena way u baahan tahay maanta cid content u create gareysa cid nuxur u create gareysa cid fikrad la wadaagto oo fikradahooda soo bandhigta content creators maanta waa movers iyo shakers industry ku jira qofka maanta dhayirsanaya ama contentka aan sameeynayn xilib uu jirto uu ku qoomamayn doona marka haddii aad rabtid inaad mover iyo shaker noqotid you have to come on the camera and create content maanta waa waxa ugu awood badan leh marka baro sida muuqaal fiican loo create gareeyo loo gaarsiiyo dadka loo dhiso storytelkaaga dhis videoga sida loo sameeyo baro videoga Allah musta'an waa one of the best waxaad noqonaysaa dadka ugu qiimaha badan leh maanta communitygeena ku jira waana ku ballan qaadaya inaad noqotid Allah musta'an qof qiimo leh oo xirfadaasi qiimo weyn bay ku yeelanaysaa marka waa inaad barataa content kasta loo create gareeyo iyo sida Allah musta'an loo manage gareeyo labada haddaad baratid waxaad noqon doontaa qof valuable waagii hore waxa qofka lagu qiyaasi jiray hantida uu leeyahay sida guryaha gawaarida iyo lacagta uu haysto laakiinse maanta xilligan aynu noolnahay waa xilli qofka lagu qiyaaso aqoonta xirfadaha iyo kartida uu leeyahay maanta adduunkan noolnahay waxaan ka soo guurnay xilligii muruqmaalka oo waxaynu u soo guurnay xilligii maskaxmaalka waxaynu ka soo guurnay qofka uu ahayd inuu jirkiisa isticmaalo waxaynu soo guurnay xilli maskaxmaala sababtan ila wadaagayo ama sababtan u sameynay faac cusub.io waxaan rabnaa inaan wax ka bedelno education systemka ama aqoonta dhex taala bulshadeena waxaa jirta sanad kasta ka soo baxa jaamacaadka waddankeena boqolaal iyo kumanaan kun oo dhalinyaro oonan haysan xirfado oonan haysan aqoonta digitalka ka maqan waxaan rabnaa inaan ku bedelno aqoonta iyo aragtida waxaan isugu soo ururinay step by step sidii aad financial dhaqaale u samayn lahayd aqoonta kaligeed awood maaha dad badan baa yidhaahda aqoontu waa awood ma dhamaystirna laakiinse kaliyaad waxa awooda aqoonta natiijo keenaysa ama natiijo ku siinaysa aqoonta xirfadaha dhalisa aqoonta lacagta keenta aqoonta kaliyaad ayaa natiijo keenaysa faac cusub university waxaad ka heli doontaa koorsooyin
koorsooyin oo dhan ma koorsooyinka aqoonta dhaliya hadday noqoto content creation hadday noqoto e-commerce hadday noqoto affiliate marketing hadday noqoto web design iyo app design iyo graphic design iyo hadday noqoto xirfadaha kale ee lacagta dhaliya hadday noqoto sida crypto aan kusoo dari doonaa stock market marka library dhan ayaan ku diyaarinay oo koorsada doonaysa aad ka qaadan doonto haddaba koorsooyinkan sidee baad ku heli doontaa koorso kastiba waa gaar waa goonideeda taa doonaysa ayaad ka qaadan karaysaa waad ku dulfanaysaa dad content creation doonaysid content creation aad ku dulfan saaxiibayaal waxaan rajaynayaa inaynu xagaa ku kulmi doonno xirfado badan iyo aqoon badan maalgelinta ugu fiican oo qof wax maalgeliyo waa maalgelinta naftaada maalgelisid waayo maanta gurigaaga waad waayi kartaa gaarigaaga waad waayi kartaa wax kasta waad waayi karaysaa laakiin xirfadaad adigu leedahay ama waxaad adigu leedahay wax weligaa meel kaa maraya ma wax weligaa dhinac kaaga lumaya ma marka maalgeli naftaada ku maalgeli aqoon ku maalgeli fikrado ku maalgeli awood kana faa'iideyso Allah musta'aan fursadahan insha Allah hadii waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysan doontid kooraska doonaysid teamka la xiriir iyaga ku caawinaya tan ugu dambaysa hadii aanad garanayn laakiin inta hore oo dhan aad garanaysid way kugu adkaanaysaa valuable ma noqonaysid sales iyo marketingku waa one of the most valuable waa qulqul wareega dhiiga oo qulqul wareega businesska ama one person business noqo ama corporate noqo ama cidaad nootid noqo hadii aanad saleska iyo marketingka garanayn hadii aanad garanaysa wax loo iibiyo hadii aanad garanayn storytelka way kugu adkaanaysaa marka waxaad u baahan tahay inaad baratid sida wax loo iibiyo inaad baratid weeyaan xirfadda qiimo ku yeeli karta maanta xilligan aynu noolnahay aad baratid waxa weeyaan social media marketing is the one of the most powerful tool maanta xilligan aynu noolnahay qofka xirfadda garanayay wuxuu access u leeyahay 2 bilyan oo qof inuu wax tuso 2 bilyan oo qof inuu ad u rangareeyo marka maanta xilli ay ka fiican tahay haba yaraatee ma jirto inaad social media marketing baratid social media marketing waa one of the most valuable skills ee maanta ka dhigi karaysa inaad valuable noqotid maanta social media marketing businesska ka hadha ama cidda ka hadhay waa cid dib u dhacday weeyaan waxaan rajaynayaa inuu muuqaalkan wax kaaga baxeen dhamaanteen waxaanu u baahanahay qof ina dhiirigeliya dhamaanteen waxaanu u baahanahay qof ina challenge gareeya dhamaanteen waxaanu u baahanahay qof inagu taageera waxyaabaha aynu rabno haddii aanad adigu qof ka helin adigu qof u noqo haddii aanad adigu qof ka helin adigu gaar ahaan naftaada u noqo